Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Nin Hindi ah ayaa waxa uu gaaray boostejada ama halka laga raaco tareenka isagoo sugayay in tareenka uu raaci lahaa yimaado, waxaana loo sheegay inuu imaanayo 7 fiidnimo, taasoo uga dhignayd inuu hal saac sugo. Wuxuu isku dayay inuu eego waxa ka socda astaanka ama goobta tareenada ka baxaan si waqtiga uu isku dhaafiyo. Rakaab aad u yar ayaa joogay. Wuxuu arkay koox wiilal ah oo meesha ku ciyaarayay. Wiilashii waxa ay xirnaayeen dharar dhammaad ah ama duug ah, waxaana ka muuqday diif iyo darxumo, balse aad bay ugu faraxsanaayeen ciyaartooda. Wuxuu u baahday inuu shaah cabo maadaama uu qabow yar jiray. Nasiib darro, meherada ama makhaayadda shaah ee goobtu lahayd waa ay ka yara fogeyd, isaguna kama tegi karin boorsooyinka oo dhan. Wuxuuna u yeeray mid ka mid ah wiilashii. Wuxuu weydiiyay inuu shaah u keeno, wuxuuna u dhiibay lacag gaaraysa 5 rupees oo ah lacagta laga isticmaalo waddanka Hindiya. Wiilkii wuu baxay si uu shaaha ugu keeno. Waqtigii waa uu isguray. Nus saac kadibna ayaa uu tareenkii yimid, waana inuu degdeg u raaco. Wuxuu istusay in wiilkii lacagtii la cararay, wuxuuna isku canaantay inuu wiil dib jira ama ciyaal suuqa u aaminay. Wuu istaagay si uu boorsooyinkiisa u qaato. Kolkuu u dhaqaaqay dhinaca tareenka ayuu maqlay cod u qaylinaya oo leh, Baabuji abkii jaay, mudane shaaxaagii. Dib ayaa uu u jaleecay, wuxuuna weydiiyey, maxaad shaaha ula soo daahday? Jawaabtii wiilka uu siiyey ayaa qalbigiisa taabatay, indhihiisana ilmo ku soo istaageen. Wiilkii yaraa wuxuu yidhi, waxa iga luntay lacagtii, kadibna waxaan meheradii ama makhaayadii shaaha aan kaaga soo iibinayay ayaan ka codsaday inaan alaabta u dhaqo si aan shaaxaagii kuugu keeno. Walaal, nuxurka dulucda ama sheekadu waxa weeyaan daacadnimada ayaa ah siyaasadda ugu wanaagsan ee dunida lagu dhaqmi karo.